oday baa jariidada akhrisanayay buu yidhi dabeetana inan yaroo u dhalay ayaa mashquuliyey markuu isdhahdaa ragba ku yarba su-aal weydiiyo mashquuliyo kan yar iska mashquuli buu isanays yidhi marka intuu jariidadii rogay ayuu xaashi maabka dunidu ku sawiray intuu soo jeexay ayuu googooyey markaasuu intuu u dhibay buu yidhi halkaa fadhiisoo dunidii dib isku rakib maabkii dunida samee wuxuu isal haddee kaa yar dirtay kugu soo noqon maayo qisada waxay sheegaysaa inaan 15 daqiiqaba gaadhaynin markuu ka yara maqnaa ayuu soo noqday isagoo wada bahashi markaasuu yidhi waa tan waan sameeyey odaygu su-aal buu weydiiyey war ma hooyadaabaa kuu dhigtay jugraafiga buu ku yidhi markaasuu yidhi may hooyo jugraafiga ma dhigto dasaad u samaysay buu yidhi waraaqdan aad ii dhiibtay buu yidhi xaggan maabku ka sawirna xaggeeda kale qof baa ku sawiraa qofkii unbaa isku hagaajiyey buu yidhi gacanta iyo lugta iyo adinkiiyo isugee dee dunidii waa isku hagaagtay markaa qofki isku hagaajiyey ha dabeetana weedhii inanka yar bay ka dhigeen weedh xikmada waasaa maamahaan soomaalidu ku baxaan oo kale weedhaasaa waxay tahay cindamaa acadtu binaa alinsaan acadtu binaa alcaalam buu yidhi markii aan qofkii bini aadamka ha dhisay sawirkiisii ayaa adduunkiina ii dhismay waxay leeyihin ilmaha yari wuu iska yidhiye that's the real world nolosha waa taa qofka bini aadamka marka la dhiso ayay dunidu dhisantaa qofka bini aadamkii markuu dumana nolosha iyo dunidooba wada